السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا qiimaha badan ee ku xiran channelkeena YouTube ee Garaadso Channel isku soo noqod wanaagsan insha Allah maanta waxaan bilaabi doonaa casharkeennii saddexaad ee aan ku baranaynay Photoshop-ka. intaanan guda gelin casharka waxaa jira waxyaabo yaryar oo cillado ah oo haysta asxaabta qaar sidii hore noogu sheegeen waxaana macquul ah adiga inay ku qabsato. marka koowaad cilada koowaad waxay tahay dadka qaar waxay ka cabanayaan waxyaabahan qaar oo halkan yimid kuwan kalarka leh oo iyaguna halkan oo kale yimid. marka Photoshop-kii baa isku qasmay ciladaas waxa weeyaan waa si fudud haddii ay ku qabsatana fadlan tirtiran kadibna dib ha ugu shubin. waxaad samaynaysaa waxaad tegaysaa halkaas ay ku qoran tahay window kadib waxaad dooranaysaa workspace. marka workspace tagto hoos soo deg halkan ay ku qoran tahay receipt halkaas ku dhufo wax walba sidii ay ku soo laaban doonaan halkaani meesheeda imaanaysaa tan halkeeda ku laabanaysaa. marka sidaas waa qaabka ugu fudud ee waxa weeye u receipt garin kartid bilowgii Photoshop marka ku shubinaysaa ayaa ka dhiganaysaa. marka waxba ha tirtirin dadka qaar ayaguna waxay soo weydiiyeen oo kale ahayd farta qaabka loo weyneynayo iyadoo la isticmaalayo in highlight hal mar la mariyo kadibna la weyneeyo. marka insha Allah casharkan ayaan ku baran doonaa. maanta horta waxaan sameynaynaa intaan hadda meesha horteena kaaga muuqata casharka insha Allah ID iyo wixii la halmaala waan ka bixi rabnay laakiin waxaa jira waxyaabaha qaar oo kalarada macnaha qaabka la isku gelgeliyay waxa kalena ma aha meeshan ay ku jiraan kulli kuwii inta ku jiray oo la isticmaalay oo waxa weeyaan qaab kale la isku gelgeliyay oo la isku dhaweeyay weeyaan. marka kalarada kale iyo wax kale oo dheeri oo la isticmaalay ma jiraan oo rectangle kale dheeri ah kulli weeyaan. marka waxaan hormarin doonaa kan qaabkan u isticmaalayno. marka koowaad waxaad tegaynaa halkan ay ku qoran tahay file kadib waxaad tegaynaa new. sidan hore in kuu sheegnaa markii aad u baahan tahay inaad size-ka dhuubtid oo hadda ka soo tusaale waad u jeedaa qaabku u dhuuban yahay afar geesna ma aha geesahana uma dheera. marka waxaan isticmaalaynaa anaga hadda inchi ayaan isticmaalaynaa waa 2.3 ayaa halkaas ka dhigaysaa 3 dhibic waa 2.33 halkan waxaad ka dhigaysaa 3.39 kadib 300 halkan u dhaaf kadib markaas waxaad leedahay gradeka abuuridii waa kan labadaas waa isleeyihiin. waxaan ka bilaabi doonaa marka halkan qaybtan buluuga ah sida lagu sameeyay wax kale ma waa circle-kii oo kaliya circle-kan aad arkaysid oo la soo qaaday halkan la dhigay halkaas la dhigay kadib la saaray kalarkii buluuga kadib halkaas sii tag wax yar adoo haya left click kor u jiid waad u jeedaa waa intaas midka waxa meeshan kaaga muuqdaa waa intaan waxa ku soo haray guduudkaana waa circle-kii oo stroke la geliyay weeyaan kaas wuxuu kuma dhibaayo umaleyn haddii casharadii hore la socotay. halkan kan waa caddaan meeshaasna nan iska dheh halkaas cad ka dooro macnaha waxa weeyaan geesahan iyo xariiqim soo gelaysaa markii aad saxadid oo kale. marka halkaas markii aad marinaysid halkan imow waxaad dooranaysaa markaasi adoo haya fx kadib waxaad dooranaysaa stroke waxa stroke yar ee gududan ee soo galay weeyaan. haddii aad rabtid inaad weynaysid halkaas kala tag halkan ka yare waa left click markasta oo click aad leedahay waa inaad click la qabatid weeyaan wax walba aad sameynaysid waa ka halkan markuu yimaado kadib maxaa haray marka hadda waxa haray kan blue ah iyo meeshan cad siday isku qaateen wax kale ma aha waa rectangle-ka u koreeya halkan kan asagana sidoo kale blue ka dhig. su'aashu waxay tahay marka rectangle waaba kane sida loo jaleeciyay ee loo qabtay waa maxay waxa leedahay control t hoos imow sidaas markay noqoto hadda meesha halka kaaga muuqato saas markay noqoto waxaad kor qaado left click lahaya saas wax yar jaleeci wax kale ku dar halkaas kala keen meeshana caddaatay soo maaha ka laabo markaas halkaas ama saxdaas hadba tii aad doonto waxaad leedahay markaas control t wax yar markii oo shashada saan oo kale kaaga soo dhawaato waxaad samaynaysaa control minus baad taabanaysaa zoom-kan waa isticmaalaysaa isagana haddii aad doontid
marka wax yar markuu soo dhawaadaan saana kale u jiid kana qabo markaad soo dhawaysanayso waxaad isticmaalaysaa control plus shaashadii waa taas haye sawirkan sida loo soo geliyey iyo meeshan kale muhiimadda sawirkii ma aha blaze ka soo geli waxa weeyaan halkan meeshan cad fartan cad iyo qaabka caddaanka loo saaray waa rectangle-kii labaad waa midkan hoose oo halkaa la dhigay midabkiisii laga dhigay caddaan bes halkaana loo soo jiiday kadib saxdaas halkaas ku dhufo kadib soo jiid meeshaan la keenay weeyaan magacaad doonto textiga qaabka lagu qoro haddaa baranaynaa marka hor text soo dooro photoshopka aan isticmaalayna waa midda ugu fiican ee waxa lagu tusaaleyn karo sababtoo ah meel walbo aad saartid muuskaas wax walba ay qabatay kuu sheegaysaa kan waxaa soo qabtaa kan waxaa lagu jaraa kan qofkii aan aqoonin ama photoshop hore aan usoo isticmaalin waa ku baran karaa wax walba uu qabto kan inuu brush iyo kale kuu sheegayaa wax ku tirtiraysid kan kale kan waxa qaabka aad wax ugu jiraysid uu ku tusinayaa waka marka mid walba saa u saar hadda waxaan dooranaynaa t oo ah textigii halkan photoshopkan oo kale waxay leedahay haddana in fartii ay kusii qoraysaba markaas kadib adigu waxaan uma baahnid iska titir highlight saar kulli wixii aad u baahan tahay qoraysaa markaas intaas markii aan qoro waxa u baahanaa farta inaan weyneeyo horta marka hore highlight saar left click la qabo saas usoo mari adoo muuskii lahaaya saas usoo marinaya halkan waa ka weyneyn kartaa halkasta tagtid left click ama clickta caadiga weynee ku weynee halkan haddaa ujeedda waa weyneys mise halkan haddaa ujeedna waa yaraane gaarta kalarka si u bedelo marka halkan ku dhufo kalarka midabada aan dooranayno oo kale kan oo kale ka dhig okay dheh midabkaas markuu doormo halkaas ay ku qoran tahay sax saar si aad u hadda calaamadda waxaa wataa weli t falaarta halkaa waxay saaran tahay t soo maa ka qaad halkaas gee meesha ugu koraysa oo move tool lagu magacaabo kadib gee kan soo qaad halkan keen waa tusaalihii inaad fahanteen oo u malayn tusaale halkan oo kale iska gee waxaad ka dhigaa tida ku laabto mar kale ayadaan dul saaray highlight saaray waan yareeyey xoogaa fartii waan bedelay madow baa ka dhigay wax yar weli kor baan usoo qaaday in yar anoo ayay dusheeda taagnayn kadib sax wakaa sida halkan sawirka loo soo geliyey waa file base linked casharada horda soo daawatid uma baahanaysidba kadib click halkaasi ku qoran tahay place in yar yaree ku siin sadarka saar saaad adhowteed iskaaga weynaan ama aad usoo lumin halkaas markii aad saartid soo qaad waxaad tegaysaa marka kan guduudan halkeebuu ku jiray waa kan midkan effectiga la weeyaan horta marka waa sax saar ku ogolow inaad meeshaas oo gashay soo qaad hoos soo deji waxaad dul saaraysaa adoo ka haya click adoo lahaaya kan markaad saartid kadib waxaad leedahay right click waxaad leedahay create mask hadda waxa muddo inuu ku dhex jiro halkan imo marka halkaas ku daabo calaamadda move toolku waa ii saaran yahay control t waa la weyneynaysaa marka wax yar adoo weyneynaya okay waka haddii halkan ugu baxa la arki maayo meesha inuu ku dhex jiraa la rabaa markan waa labadooda inay isku mid noqdeen oo u malaynayaa waan kuu soo dirayaa insha allah tijaabi groupyo waan kusoo dirayaa isku day hadda waxaan fiirinaynaa marka kan qaabka loo sameeyey asagana kan qaabka loo sameeyey aan isku dayaynaa qaabkan sidee loo sameeyey kan horta hal mar lama wada samayn oo ay dhiigaanna gooni baan kan u samaynay kanna sidoo kale gooni baa loo sameeyey dadka qaar waxay isoo direen kuwa la mid ah kuwan balse waxaa jira kuwa aan lagu samaynin photoshop aan lagu samaynin maado kale oo illustrator la isticmaalay insha allah waan baran doonaa softwarekaas hadduu eber raalli ka noqdo markood waxaan isticmaalaynaa kan qaabka loo sameeyey markii aad u baahan tahay cabirka horaan kuu sheegay file tag new dooro markuu kuu soo baxo halkan waxaad dooranaysaa pixel ka tirtir waxaad dooranaysaa 614 halkan waxaad dooranaysaa tirtir ayadana iska tirtir waxaad ka dhiganaysaa 347 waa kan
waxaan u ekaysiinaynaa kan midkan ugu hooseeya. Kan ugu hooseeya waxaan ka bilaabi doonaa kalarkan guduudan ee hoose. Hal mar rectangle u koreeya dooro, kadib halkaas falaarta adoo la haya left click halkan gee. Midabka guduudan waa ii saaran yahay, halkan kaga beddel hadaa rabtid. Halkaas waa ka beddeli kartaa haddaysan tan kusoo baxaynin, halkaas ka beddeli kartaa. Marka midabkii guduudnaa ugu horeeya aan doortay waxaa ii haray qaybtan cad ee sidan loo sameeyey. Halkan hoos u deg, waxaad tegeysaa tusaale waa midkan, meeshaan oo kale lagu fidiyey. Kadib midabka la dooranayo waxa waaye guduud ka qaad, waxaad ka dhigaysaa white. Gadaal yar iskaga siki control minus control T. wax yar gadaal u deji. waxaan moodaa markaan in caddaankiina keennay. waa kan ugu hooseeya oo keliya waa kaas ama midkaan isticmaalnay. marka hadda waxaan ku laabanayaa mar kale tusaale intaas gee guduud, midabka guduudka waa kaa. move toolkii baan soo isticmaalay. waa kan marka qaybtan waxaa ii soo haray marka labadan sida loo soo geliyo ayaguna waa isla kii haddeer aan isticmaalayna weeyaan. halkaas iska dheh, kadib kalarka beddel ayagana caddaan ka dhig. control T oo sii weynaysa ah ama in shift la qabo. waa isla intaas waxaa ku soo haray marka kanna waa isla kii haddeer aan isticmaalaynay. ku dhufo hadduu kuu saaran yahay weeye. control T waxay hoos u deji. waa kaa qaabkaas loo sameeyey. halkan sida loogada caadiga loo soo geliyo. marka waa su-aashii aan weydiiyey ama assignment aan idinkugu diray. kan isagana isku daya. kor aan kaga sheegay waa rectangle hal mar oo kalarka caddaan weeye. waa rectangle-ka ugu hooseeyey oo stroke leh, kadibna waa laba rectangle oo la dul saaray rectangle caddaan ah. waa intaas weeyaan. kaasna soo daya insha Allah. halkaas ayaan kaga bixi doonaa. su'aalo dambana insha Allah oo ma jiri doona hadduu Eber raali ka noqdo. isku daya tijaabiya casharkana. haddii aad casharkan dhamaysatay waad ku mahadsantahay daawashadaada. asxaabta kalena sii gaarsii. channelka haddii aad ku cusub tahayna subscribe saar. waadna ku mahadsantahay daawashadaada. nabadiino.